بسم الله الرحمن الرحيم. صحافة هالكن شوكتا iyo bulshada reer Somaliland baan salaamaya. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Magacaygu waa Cabdikariim Cali Baarjeex, waxaan ahay xogayaha duulista iyo hawada ee xisbiga rajada midnimada iyo walaalinta bulshada reer Somaliland ee wadani. Maanta bishu tahay 10kii July 2024 maalin Arbacaa oo ku beegan 4tii bisha Muharram 1446 hijriga. halkan waxaan ku qaban doonaa shir jiraa'id oo kooban oo kaga hadlayo qodobadan hoos ku qoran. sida la wada socotaan madaxweyne Muuse khudbadii uu ka jeediyay golayaasha hortooda 9kii June waxa uu ku sheegay arrimo fara badan. waxtar fara badan buu sheegay, waxqabad fara badan buu sheegay. taa waxaan u dhaafay cid ay khusayso, laakiin anigu shakhsiyan waxaan ka hadlayaa 3 qodob oo ku jiray khudbadii madaxweynaha oo ku saabsan aviation-ka. madaxweynuhu waxa uu sheegay in ay dawladdu soo iibsatay diyaarado yaryar oo lagu tababari doono dhalinyarada reer Somaliland oo lagu bari doono duuliyanimada ama bayloodnimada. kaasi qodob buu ahaa. waxa kale madaxweynuhu uu sheegay in ay aasaasi doonaan ama ay hirgelin doonaan shirkad uu ku magacaabay Somaliland Airlines. kaasina qodob labaad ayuu ahaa. qodobka saddexaad ee madaxweynuhu sheegay waxa uu ahaa inuu yiri waxa aanu aasaasi doonaa ama aasaasnay academy ama aviation-ka xarun lagu barto oo ka dhisnay ama ka aasaasnay magaalada Hargeysa. madaxweynuhu muddo 3 daqiiqo ah ayaa waxa uu ku sheegay 3 mashruuc oo waaweyn oo fulintooda iyo diyaarintooda iyo qorshahooda iyo bilaabidoodu ay sanad qaadato. ayuu ku sheegay 3 daqiiqo isagoo waliba aad u faanaya oo ka muuqato inuu yahay nin wax badan qabtay oo ku faani karo. haddaba waxaan ka warrami doonaa xaqiiqada dhabta ah ee diyaaradaha uu sheegay madaxweynuhu in dawladdu ay soo iibsatay. xaqiiqada dhabta ee diyaaradahaasaan ka warrami doonaa, cidda iskale, halka laga soo iibiyey, waxa lagu soo iibiyey iyo waxa weeyaan iyo ujeedada loo soo iibiyey baan ka warrami doonaa. ujeedaduna waxa weeyaan in ay bulshada reer Somaliland la marin habaabin ayaan uga jeednaa shirkan jiraa'id oo u bayaaminaynaa in aan la marin habaabin oo guulo aan jirin aan loo sheegin oo ballanqaad aan la fulin karin oo 4 bilood ka hadhay doorashada aan lagu dhameyn karin in ay bulshada loo sheegin oo aan lagu majara habaabin ayaan uga jeednaa in shirkan jiraa'id aanu ku bayaamino. midho dare haddaan beri duuduub ku liqi jiray doorkan waxaan hubsanayaa dirxiinu ku hoos jiro. wax badan baynu ka maqalnay xukuumadda waxyaabo ay sheegtay, waxqabad ay sheegatay, laakiin maanta aviation-ka waan isdul taagayaa waxaanan caddayn doonaa waxa ka jira hadallada madaxweynuhu uu sheegay. inta aanan taagelin waxaan wax yaroo kooban ka hadli doonaa si loo fahmo aviation-kan iyo waxaanaynu ka hadlayno. aviation-ku waxa uu yahay iyo faa'iidooyinka uu inoo leeyahay dal ahaan, xaaladda aviation-ka dalkeena iyo halka uu maanta taagan yahay. aviation-ku guud ahaan marka laga hadlayo waxa weeyaan sector ama industry ka kooban diyaaradahan duula, shirkadahan sameeya, kuwan diyaaradaha haga, airport-dada ka degaan, dadkan ka shaqeeya, shirkadahan insurance-ka ah, kuwan sameeya wax walba ku saabsan aviation-ka. intaas oo dhan marka la isku daro ayaa aviation loo yaqaanaa. bilowgii aviation-kuna 1903 ayuu ka bilowday dalka Mareykanka. aviation-ku wuu kobcay, waxa uu noqday industry ama sector weyn oo noloshii bini'aadamka wax ka bedelay. ganacsigii buu fududeeyey, shaqo abuur buu sameeyey, wuxuu isku xidhay bulshooyinkii. meelo waxa jira go'doon oo aviation-ka iyo diyaaradaha la'aantood aan cidiba gaadhi karteen. markaa faa'iido aad iyo aad u fara badan ayuu bulshada u yeeshay aviation-ku. innaga dalkeena aviation-ku faa'iidooyin badan bay inoo lahaa. waqtigu boominka ahaa ee uu sida fiican u shaqaynayay, waqtigii dawladdii marxuun allah u naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal, dawladdii daahir riyaale, waqtigii siiraayay bilowgiisii hore si fiican buu shaqayn jiray aviation-ku. diyaarado fara badan baa dalka inoo iman jiray, airport-keena wuu camirnaa, bulsho badan baa iman jirtay. dadka Soomaali oo dhan meel kasta ha u socdaan Hargeysa soo mari jireen. anuu xilligaa waxaan ka mid ahaa dadkii aviation ka shaqayn jiray ee xogogaalka u ahaa. qofka u socda Muqdisho wuxuu soo mari jiray Hargeysa, ka Boosaaso u socda ama Garowe u socda ama Puntland u socda
hargeysu soo mari jiray ka u socda kililka shanaad hargeysu soo mari jiray yacni waqti dahabiya ayuu ahaa waqtigaas hore ee ugu dambeysay xukuumaddii siiraanyo bilowgeedii hore intaa wixii ka dambeeyey waqtigii dowladda muuse ay timid aviationku dibudhac weyn baa ku yimid waxyaabaha waaweyna loo tirin karo waxaa ka mid a waxa la hakiyey oo la joojiyey isu socodkii bulshadu waxay ku socon jirtay warqadan loo yaqaano go home ee qofku uu ku tegayo halka uu baahnaa isagoon baasaboor haysan populationka Somaliland iyo populationka Soomaalida badankoodu ma haystaan baasaboor rasmi ah ku dhoofaan laakiin waxa uu fududeyn jiray warqada yare fudud ee go home tala odhan jiray xukuumaddan Muuse Biixi markii ay joojisay warqada airportka wuxuu noqday airport aan diyaarado badan iman dad badan aan ka soo degin dib u dhac weyn baa ku yimid intaa waxa raaca oo la socday oo daba socday oo ku lamaana in shirkadaha diyaaradaha ee ama Soomaalida ah ama ajaanibka soo dalbanaya permissionka iyo license ay ku imanayaan Somaliland in lagu dhibo si gaar ah loo weydiisto adduun gaara dana gaara laga dhexdaydayo oo cunaqabatayn la saaro iyadoo shirkado gaara lagu naasnuujinayo ama loo banaynayo saaxada aviationka tusaale waxay noogu filan diyaaradii ugu dambeysay Air Arabia ee dalka ka laalaabatay ujeedo kasta ha uga laalaabato laakiin ujeedada rasmiga ama qodobka koobaad ay tabaaxan wuxuu ahaa maamulka Somaliland iyo dawladda Somaliland iyo aviationkeeda inay caqabado far badan ay kala kulmeen marka guud ahaan aviationka horta waa aviationka noocaasa adduunka faa'iidada u leh inagana faa'iido inoo leh laakiin ayna ka shaqayn xukuumaddan Muuse Biixi waqtiga talada ay timid dayacaad fara badan baa aviationkii ku yimi kamay faa'iideysan xataa xiriirka wanaagsan ee ay la leedahay dawladaha adduunka waaweyn ee wax naga anfici kara Ethiopia kamida Taiwan baa kamida kamay faa'iideysan waxa kamida oo kale dalkan Imaaraadka Carabta ee qayb kamida dalkeena aynu ka kireynay ee dekedeena maamula ee saaxiibka dhowna lahay kamay faa'iideysan dawladda Muuse Biixi marka caqabadahaas ay yimid marka waxaanu jecel anagu insha Allah taala marka aanu xukunka nimaadno xisbi ahaan wadani inaanu wax badan ka qabano caqabadaha jira aanu marketka free ka dhigno oo diyaaradu free ku iman karaan si qiimihii u jabo oo competition u yimaado oo tartan u yimaado oo dadkii u helaan choice fara badan oo diyaaradood oo ay kala heli karaan maanta tusaale ahaan qofka ka soo duulaya meesha loo yaqaano Ingiriiska oo kale Hargeysa imanaya waqtigii samarkana waa lagu jiraayay lacagtu ku soo duulaya qofkaas Hargeysa ku imanayo diyaaradda keenaysa ugu tooska ugu fiicani marka ruudka laga hadlayo waa Ethiopian Airlines waxay ka qaadaysaa lacag ka badan £1,000 ay qofkii ka qaadaysaa halka qofka South Africa tagaya ee ka soo duulaya London ee raacay Ethiopian Airlines uu ku tagayo lacag £400 marka waxaad ka dareemaysaa halka in suuqu yahay suuq xiran oo cid gaar ah u xiran insha Allah marka xukunka xisbigu yimaado wax badan baan ka qaban doonaa aviationka iyo monopoly-ga jira waanu fududeyn doonaa inta markaan ka soo gudbo guud ahaan aviationka aan ka soo hadlay waxaan dib ugu noqonayaa saddexdii qodob ee aan sheegay anoo soo koobkoobaya horta noocan diyaaradaha madaxweynuhu sheegay in la soo iibiyay waxa loo yaqaan Illusion 103 waxa lagu sameeyay dalka Ruushka waa diyaarado lagu talagalay tababarada bayloodada markay cusub yihiin qiimahoodu waa 120,000 ilaa 150,000 markay cusub yihiin waqtigii la sameeyay waa 1994 ayaa la sameeyay yacni waa diyaarado iminka jira muddo 30 sano ah waxa weeye qof iminka soo iibsaday oo kale tusaale ahaan gabadhideena markatuuga la oran jiray gaboobay oo kale qof maanta soo iibsaday oo kale ayay ka dhigan yahay ama waxa la oran karaaba diyaarada waqtigan xaaliga suitable ko munaasib ko ama aha anigu shakhsiyan hadii waqtiga aan joogo lahaa aviationka ama mas'uul ka ahaan la in diyaaradaha dalka la keeno ma ogolaadeen sababtoo ah diyaarada maanta safety-goodu wanaagsan ma aha spare part-kooda lama heli karo maanta oo dalka Ruushka sameeyay baa iska horgufay adduunyada uu qaybiyay marka iskaraab ahaan baa meelaha loogu iibinaya ma aha diyaarado munaasiba taas waa diyaarada laftooda haddaba cid iska leh diyaaradahan oo ayo sida madaxweynuhu sheegay diyaaradaha wuxuu ku sheegay dawladdu inay soo iibsatay anigu madaxweynuhu been buu sheegaya oran maayo nin weyn lama yiraahdo been baad sheegaysaa akhlaaqdeeda maaha qof inaan ku waraa been baad sheegaysaa xisbigan wadani ma aha akhlaaqda baray ee nagu tarbiyeyn la yiraahdo dadka been baad sheegaysaa laakiin madaxweynuhu halmaamaan leeyahay diyaaradaha cid soo iibsatay waa qof muwaadina oo reer Somaliland oo dalkan u dhashay oo la shuraaka ah dad ajaaniba oo isugu jira Carab iyo Ukrainiyiin ayaa keenay diyaaradahan inuu dalka ku tababaro dhalinyarada ayuu keenay ma aha wax dawladdu leedahay wax dawladdu soo iibsatay ma aha laakiin maxaa dhacay markii dalka uu keenay dawladdu waxaan ku naqaanay inay dadka balood kala wareegto oo beer kala wareegto burcad dhuleed ku naqaanay laakiin waxa dhacday
burcad cireed baa dhacday ama cirjiifnimo ayaa dhacday oo ninkii muwaadinka ahaa diyaaradihii uu keenay waa lagala wareegay isagoo permission aan bixin ogolaasho aan bixin ayaa lagu buufiyey calankii Somaliland registration baa lagu buufiyey aan jirin oon ka diiwaan gashanayn account iyo ayata midnaba ninkii waa laga faramaroojiyay diyaaradihii uu keenay muwaadinku haddii aanu hadli karahayn annaga u hadli karaynaa taas waa xaqiiq muwaadinka wixiisa gacanta uguma jiraan dawladda ka faramaroojisay marka taasna waxaan leeyahay wax maaha laga filayay dawladdu inay ku tallaabsato madaxweynuhu wuxuu sheegay diyaaradahaasi muddo 3 wiiga gudahood inay ku duuli doonaan lagu xidhxidhi doono ay ku shaqayn doonaan maanta waxa laga jooga waqtigu sheegay bil baa laga joogaa diyaaraddu wala sameynaan arag diyaarad hawada maray sameynaan arag taana waxa ka cad in mashruucaasi yahay mashruuc fashilmay oo loogu talagalay dadka in lagu majara habaabiyo lagu beer la xawsado doorashadana cod lagaga raadiyo taana waxaan dadka u cadaynaynaa mashruucaasi mashruuc faashil weeye dawladuna ma laha nin shakhsiyaba iska leh laakiin dawladdu faramaroojinta ayay ku haysaa kaas waa qodobkii diyaaradaha qodobka labaad ee ku xigsiinaya waxa weeyaan madaxweynuhu wuxuu sheegay inay bilaabi doonaan dhisidda ama ka shaqaysiinta aviation academy waa loo baahan yahay sida runta ah oo dalku wuxuu u baahan yahay aviation loo sameeyo academy wax lagu barto oo tababarada diyaaradaha bayloodnimada wax kasta lagu baran karo wixii suuragala ee shuruuc caalami ah aanay xidhahayn laakiin sida uu sheegay madaxweynuhu aviationka uu sheegay academy-gaasi mid shaqeeya hadda maaha sababtuna waxa weeyaan meelu ka dhisay maynaan arag meelu ka maaragtay cid ka soo baxday maynaan arag goor la aasaasay maynaan arag warbixin badan oo aynu ka haynaa haba yaraatee ma jirto wuxuun baa filayaa oo qorshaha uu islahaa qabo laakiin uu suurageli waayey laakiin 3 bilood ee hadhay qorshe ku suuragelaya ma aha sidaa daraaddeed aviation academy maanta jira oo Somaliland ay leedahay oo dhisani oo arday soo saaraya oo arday wax ka baranayso ma jiro kaasina waa qodob kale qodobka ugu dambeeya ku noqonaya waxa weeye madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu shirkad diyaaradeed oo la yiraahdo Somaliland Airlines uu bilaabi doono oo uu samayn doono way fiicantahay haddii la sameynayo laakiin 4 bilood iyo 3 bilood iyo 5 bilood wax ku dhamaan kara ama lagu samayn karo ma aha marka diyaarad la bilaabayo waxaad u baahan tahay inaad liisamadii caalamiga ah hesho inaad hesho marka hore waxa loo yaqaano feasibility study aad sameyso daraasiiso diyaaradaadani nooca ay noqonayso ma full service ba ma regional ba ma local ba ma wax low cost bay noqonaysaa nooca diyaaradda aad doonaysaa waa noocma dadka aad qaadaysaa waa noocma halka ay tagaysaa waa halkee maxaad u haysaa budget maxaad u haysaa kharash maxaad u haysaa barnaamij ay ku shaqayso route-ka ay marayso tagaysaa waa halkee dalalka ay ka degaysaa waa halkee nooca diyaaradda aad dalbanayso waa noocee ma nooc propelleraba ma nooc jet aba jedka kala duwan capacity-gu waa intee suuqa aad doonaysaa intuu leeyahay waxyaalo fara badan baa u baahan in la isweydiiyo marka diyaarad la aasaasayo marka waxaan ku soo koobayaa 3 mashruucba ee madaxweynuhu sheegayba waa 3 mashruuc oo aan jirin oo aan suuragalahayn oo madaxweynuhu ugu talagalay inuu indhaha bulshada ku jeediyo dadka doorashada gali doonana uu ku beer la xawsado uu ka dhigay inuu wax ka qabtay aviationkii Somaliland annaga xisbi mucaarad ahaan waxaana saaran inaanu dadka xaqiiqada u bayaamino waxa jira u sheegno wixii suuragal ah la qaban karo dawladdu qabato aanu ku hambaliyeyno wax ka wanaagsan aanu keeno laakiin haddii dadka been loo sheegayo oo madaxweynuhu dadka inuu buuri maran ka kareeyo uu doonayo madaxweyne ka daabaanu leenahay dadka buuri maran ha saarin waxaan jirin ha u sheegin warbixina sax ahayna ha la wadaagin annagu waxaanu diyaar u nahay wixii dawladdu ay samaysay wanaagsan inaanu ku taageerno laakiin wixii beena ama wixii dadka propaganda loo sheegayo ama aan jirinba waanu ka qabanaynaa kaasina waa roolka aanu leenahay aad iyo aad baa u mahadsantiin intaasaan ku soo koobayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh